اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. إذن علمك وإفتينك بني آدمك في الدنيا والآخرة وضد حقا تصا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما السميهين كوا وحقرنا يكون أقونين كوا وحبرتي يكون وحبرن مصنا والذين fikir loogu gogol xaarayo jaamacad cusub oo dhawaan laga yigleeli doono magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Birmingham ee caasimadda labaad ee wadankan Ingiriiska. jaamacadan Gaalkacyo University oo marka magaceeda la soo gaabiyo loogu yeeri doono GU ayaa albaabada loo ballaqi doonaa bisha 17keeda ee sanadkan inuu ku jirno 2010. aqoon-yahanada kala duwan ee ka soo qayb galay kulankan lagu lafagurayo taabagelinta jaamacadan ayaa waxay ahaayeen kuwo ehel u ah waxbarashada iyo horumarinta Soomaalida. arinta jaamacadda Gaalkacyo ayaa waxay u muuqataa mid ay si weyn u soo dhaweeyeen ka soo qaybgalayaashii shirka iyadoo waliba door muhiim ah la doonayo inay ka qaataan taaliyada dibadda iyo waliba kuwa gudaha intuba si loo helo waxbarasho mugle sida ay xuseen ururka samafalka Mufiid oo iyagu gacanta ku haya barnaamijkan iskuna soo dubariday. waxaana halkaasi si weyn loogu xusay baahida ardayda Soomaaliyeed ee dugsiyada sare ka soo baxa ay u qabaan jaamacadaha maadaama aysan jirin fursado u sahlaya dhalintaasi inay waxbarasho u aadaan dalka dibadiisa iyadoo la sheego qaarkood inay iskaba dhaafaan waxbarashada arrimo la xiriira dhaqaalahooda dartooda. dadku waxaa la galay dadaal ah in maadaama burburkii dhacay waxbarashadana kala luntay dadku runtii meel la deganaaba waxaa dadaal la galay in waxbarashada dib loo soo dhiso. taas oo la ogyahay inay tahay oo la wada ogaadayna aan wada ognahayna inay tahay isha keliya oo dadku horumar ku gaari karo maadaama inta kale mooryaan noqotay in laga gaaro inta kale oo lagu dadaalo dadka wax la baro. gobol walba xilqaankaas ka dhacay iskuulaha samaysmay dadaal badan baa la galay. markii iskuulla samaysmeen oo Gaalkacyo ay safka hore tahay oo gobolada kale ay wada tahay waxaan jirinin goboladii dhexe iyo inta u dhow oo dhan meel dadku markay iskuuladii ay ka soo baxaan ay uga gudbaan. sidaas awgeed baa waxaa runtii dad badan oo aqoon-yahana wax garad ah meel badan kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisaba yaa lagu fakaro la yiri war dadka aanu raadino meel waxbarashadan dugsiga sare laga sii aado dadka wax ka faa'iideystaan. waxaa jirto in dadkeena qaarkood ee riyo u maleeyaan markii la yiraahdo Soomaaliya ayaa jaamacad laga furay laakiin waxaan idin sheegayaa arrimahaas riyo ma aha reality weeyaan xaqaa'iq weeyaan. waxaan ku takhasusay aniga pathologist anahay cilmiga biochemistry-ga ayaan research ku sameeyay master ku sameeyay PhD-gii aan ku sameeyay muddana aan ku soo shaqeynay ilaa muddo 15 sano ah. haddii dad loo baahdana waxaanu diyaar u nahay inaanu geyno inkastoo xoogaa maaragtay meeshu dhib badan tahay la yiri haddana inaanu geyno aqliga iyo aqoonta iyo wixii tayaaba aan ku taageerno diyaar baan u nahay. marar badan ayaan isku dayay inaan meelo badan oo aado oo nabad ay ka jirto waayo koonfur lama tegi karo. haddana waxaan diyaar oo inaan tagi doono jaamacadda Gaalkacyo insha Allah oo la shaqeyn doono saaxiibaday oo kamid ah Dr. Dalmar waan mahadsan. qofka hadduu jabo in la kaba ayuu u baahan yahay labada lugood ayaan ka wada jabanahay. waxaan rajaynayaa inay noo noqon doonto kabistii qofku uu ku istaagi lahaa oo labada lugood laga kabi lahaa haddii Ilaahay idmo waana noqonaysaa. ilaahay waxaan rajaynayaa inuu naga saaro baahidaas aanan u baahan in dad waxna tara anagu aan wax tari doono haddii Ilaahay yiraahdo. si kastaba ha ahaatee waxaa hubaal ah haddii arrintani ay noqoto mid hirgasha in ay noqon doonto mid ay ka faa'iideystaan dhammaanba ardayda jecel waxbarashada. Nasr Carro, Universal TV, magaalada Birmingham.